Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso mudan inaan ku cibro qaadano. Qisadan ayaa waxay ku dhacday laba wiil oo saaxiibo ah. Labadan wiil midkood ayaa geeriyooday. Markii uu geeriyooday ayaa saaxiibkiisii wuxuu ka qayb galay aaskiisii. Markii la aasay isagoo u kortaagay qabrigiisa ayuu aad u murugooday. Isagoo murugaysan ayaa waxaa soo kor istaagay nin sheekh ah. Markaasuu wuxuu ku yiri wiilkii, ka war ninkii saaxiibka dhintay, haddii la soo celi lahaa maanta muxuu qabsan lahaa? Wiilkii ayaa bilaabay inuu tirinayo waxyaabo badan. Uu leeyahay haddii saaxiibkii la soo celi lahaa salaadii ayuu dukan lahaa, haddii saaxiibkii la soo celi lahaa xumaantii ayuu ka tagi lahaa, haddii saaxiibkii la soo celi lahaa xiriirkiisa ayuu wanaajin lahaa u dhexeeyo isaga iyo rabbigiisa, haddii saaxiibkii la soo celi lahaa wax badan ayuu naftiisa ka bedelin lahaa, xumaantii uu galay ayuu ka soo naqan lahaa, khaladaadkii ayuu dib u sixin lahaa, dadkii xumaanta ka sameeyay ayuu ka dalban lahaa inay cafiyaan. Sidoo kaleeto wuxuu naqan lahaa ruux ku wanaagsan cibaadada Allah, salaada wanaajiya, soonka la yimaada, zakadana iska bixiya, haddii xoolo haystaan xaj soo guta, wax waliba oo wanaaga saaxiibkii uu samayn lahaa. Sheekhi ayaa la hadlay wiilkii ku yiri, saaxiibkaa waa uu tagay, mana soo laabanayo, balse fursadda aad sheegayso maanta adiga ayaa haysato oo weli nolosha kugu jirto. Waxaan kugula talin lahaa inaad inta aad sheegtay adiga aad ka faa'iidaysato, naftaadana aad wax badan uga bedesho. Maxaa yeelay saaxiibkaa maanta waa uu dhintay, wuxuuna aaday nolol uusan ka soo laabanaynin, balse qofka mudan inuu ku cibro qaato ayaa waxa ah adiga. Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad ka faa'iidaysato maanta fursadda aad haysato. Maxaa yeelay fursaddani waxaa laga yaabaa inaysan beri ku soo marin. Qisadan halkaa ayay nooga eg tahay. Xaqiiqatan qisadan waxyaabo badan aan ka faa'iidaynaa. Noloshan aan ku jirno maanta waxaa laga yaabaa in badan inaynu ku kadsoonahay, hurdana aan ku jirno, balse waxaa xaqiiqo ah qofka markii uu geeriyoodo ayuu wuxuu arki doonaa nolosha dhabta ah. Sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan mar waliba noqono qof diyaargarow ku jira, iskuna diyaariya xisaabka dambe iyo maalinta soo socota culayska badan. Ogow, haddii aad maanta nooshahay beri waa dhimanaysaa. Haddii aad maanta caafimaad qabto beri ayaad xanuunsanaysaa. haddii aad xoolo kasta leedahay beri ayaad faqrinaysaa. haddii aad awood kasta leedahay beri ayaad weynaysaa. imise qofood oo taqaano oo shalay jirtay maantana ka tagtay adduunyada, imise qofood oo taqaanay oo awood ku faani jirtay maantana ka tagtay adduunyada, imise qof oo taqaano noloshan ku raaxaysan jirtay balse maanta laga sheekeynayo. Ogow, noloshu waa saas. haddii aad maanta joogto beri waad tegaysaa. Ha ku kadsoomin noloshan inta aad nooshahay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gamaanka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.